nahay macallinow waxaad tahay nolosheeni baatiin u bixiini baan nahay waa inaad ogaataan noloshaan ku noolnahay. 21 Noofembar waa maalinka loo asteeyay in loo dabaaldego macalinka Soomaaliyeed waxayna soo bilaabatay sanadii 1974 kadib markii ay dowladda kacaanka ee xilliga jirtay waa aqoonsatay waxayna si weyn u xusi jirtay oo ay u maamuusi jirtay muhiimadda macalinka iyo ahmiyadda uu leeyahay. burburkii dalka kadib macalinka Soomaaliyeed waxa uu ku soo shaqeeyay duruufihii adkaa ee dalka ka jiray mana helin wax daryeel iyo tixgelin ah waxayna u soo dhabar adeegeen sidii ay u badbaadin lahaayeen mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed ee soo koraya dalka iyo dadkana ay mugdiga uga saari lahaayeen. macalinka waa kan u taagan har iyo habeen la dagaalanka jahliga isaga oo ka badbaadinaya dib u dhaca jahliga una horseedaya horumar iyo ilbaxnimo. waa ilaaliyaha dhaqanka iyo hiddaha waafaqsan diinteena suuban waa barbaariyaha iyo ifayaha mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed. haddaba si loo maamuuso macalinka Soomaaliyeed loona muujiyo tixgelinta ay bulshada iyo dowladda u hayaan waxaa maanta munaasabad weyn oo lagu xusayo macalinka Soomaaliyeed soo qaban qaabiyay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare waxaana ka soo qayb galay madax tiro badan oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.